kulan looga hadlayay dagaal beeleedyadii ka dhacay deegaano ka tirsan gobolkaasi Hiiraan ayaa maanta lagu qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. warkaasi waxaa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyahana Ibraahim Maxamed Geedi. kulankan ayaa waxa uu ahaa mid lagu soo gabagabeynayo colaadii dhex maratay dad walaalo ah oo dhawaan dagaal ay ku dhex mareen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. qaar ka mid ah odayaasha deegaanka iyo guddiga dhamaystirka heshiiska ayaa ka hadlay waxaana ay sheegeen in hawshan si wanaagsan u dhamaatay. waa dhamaystirka shirkii dib u heshiisiinta muddada soo socday maraaxil iyo heerar kala duwan soo maray. heerkiisii koowaad iyo fadligiisii ugu horreeyey waxaa iska lahaa waxgaradkii reer Hiiraan. waxaan malaynayaa meesha hadda aan fadhino in badan ayay juhdi ku bixiyeen inay barnaamijkaas meel fiican soo gaarsiiyaan. kadibna waxay ku wareejiyeen walaalihii ay dhibaatada ka dhaceen waxgaradkoodii ayay ku wareejiyeen. إن شاء الله وربنا يجينا إلهي وربنا وربنا وأنا صحيح معي وأكيد الشديد وأحمر لي ديني بالنسبة كأحسن إلى هذا السنة مدر وجه معي وما كان منك حول وجه إسرائيل حول وجه إسرائيل يعني في السنة يوم السنة تعليم لما كنت أحول بينهم وما كانوا قليلا ما كانوا ويلا ما بين حتى لا يسوس يبقى تري كدع لهاد في النبي الله لهاد قول بهيران أمسح تكمل بالبوين قال هانك الله لهاد طريق هرتك أصل بصي هي محمد قال إلى المغنى الحمد لله رب العالمين بحفظ انت اللهم حريصته وعليه هي الله يبارك اسكت على سنه لو سوي حمر الميمار باقي الميمار ما اسكنا على النهر هنا والله واسكو هبل الماضي أراني قالوا هنا كذا قالنا قالوا يا عبد الحكيم وأراني قالوا وبين هنا كذا قالنا شيء ومش على أمور ولا بني أو هذه لا خالتي أو هو خالتي وهذه على الزمان في الدين أي هذه على كل ميل أي هو هذه يا شيء كل جماعة أما يقول لك هذا إذا عملنا سلاح ugu dambeyntii Waas Raxmaan Waas Khaliif ayaa wax wanaagsan ku tilmaamay dadkii sida wajirka ugu shaqeeyay in la dhameeyo colaadda dadkii walaalaha ku dhex martay magaalada Beledweyne. salaan dabadeed maanta waxaan la soo maray salaan iyo duco anigoo ka wakiil ah ugaasada inta maqan iyo wabarrada gobolka. waxaan raali ka ahay dadaalka aad samayseen markaan raali ka ah inay duco iyo talo iyo salaam ba maanta aan idin kulmid hawsha wadaan waa hawsha Ilaahay raali ka ahaa. saddex qolo faqood wixii ka saa'id Ilaahay ma amaanin. Geedi warbaahinta qaranka Beledweyne.